SEO waa erey aad mar walba maqli doontid haddii aad blogger noqotid ayna muhiim tahay inaad si fiican u barato. Waa maxay SEO? SEO waxaa laga soo gaabiyey Search Engine Optimization. Si kooban waxaa laga wadaa in website-ka uu ka soo muuqdo liiska ugu sarreeya ee search engines sida Google iyo Bing, si aad u heshid traffic ama dad badan oo website-ka kugu soo booqdo. Tusaale, haddii aad Google ka baartid macluumaad sida how to invest in Bitcoin, waxaa kuu soo baxaya websites badan oo wax ka qoray ciwaankan, sida website-kan kuu muuqda. Sidoo kale haddii aad hoos u baxdid waxaad arkaysaa website badan. Marka dadka ugu badan oo arrinkan baaray ugu horreyn waxay booqanayaan website-ka ugu horreeya. Haddii ay macluumaadka ay raadinayaan ay ka waayaan, kadib ayay kuwa kale u gudbayaan. Sidaasna website-kan wuxuu ku helaa traffic ugu badan. Macnaha dadka ugu badan waxay booqanayaan website-kan. Marka SEO waxaa laga wadaa website-ka inaad ka dhigto page-ka ugu horreeya ee search engines si aad u hesho traffic organic ah. Sidee u dhigi kartaa marka page-ka ugu horreeya ee search engines website-kaaga? Website-kaaga si uu ugu muuqdo liiska ugu sarreeya ee Google waa inaad iska dhistaa SEO. Sidoo kalena waa inaad dooratid topic aan tartan badan ka jirin oo low competition ah. Sidaasna page-ka hore ayaad uga soo muuqan kartaa. SEO marka laba ayaa loo kala qaadaa: on page SEO iyo off page SEO. On page SEO waa inaad nidaamsatid postiga aad qoraysid, sidoo kalena aad nidaamsid website-kaaga si aad u soo jiidatid Google-ka iyo search engines-ka website-kaagana horey uu keeno. Off page SEO marka waa wax ka baxsan awooddaada, sida link building, domain authority-gaaga inaad kordhisid, backlinks inaad heshid. Backlinks maxaa marka? Backlinks waxaa waaye marka website kale uu link gareeyo website-kaaga. Macnaha waxaa waaye website kale ayaa linkiga website-kaaga dhex dhigay website-kiisa. Tusaale, haddii aad ka hadlaysid post ku saabsan e-commerce, tusaale waxaad usoo qaadanaysaa shopify.com. Linkaas aad website-kaaga ku qortay waa backlink, wuxuu yahay Shopify. Haddii aad haystid marka backlinks badan, waxaa kor u qaadmaya domain authority-gaaga. Sidaasna waxaad kor uga soo muuqanaysaa page-ka hore ee Google haddii domain authority-gaaga uu sarreeyo oo high yahay. Sidee lagu helaa marka backlinks oo ah SEO-ga marka la joogo kuwa ugu muhiimsan? Backlinks-ka sida lagu dhiso ma sahlan horta marka ugu horeysa. Laba qaab aad ku heli kartaa. Qaab koowaad ah inaad qortid posts quality leh markay dadku u bogaan kadib oo macluumaad fiican ay ka helaan. Kadib quality postigaas ay dartis linkiga website-kooda u dhigaan macluumaad ahaan, resource ahaan. Qaabka labaad oo ah inaad iibsatid, tanna badanaa dadka laguma taliyo, sababtoo ah Google-ka hadduu kuu qabto waxaas camal waxaa laga yaabaa inuu kaa bangareeyo. Off page SEO haddii aad fahantay marka intaas ayaan ugu baxaynaa. Muhiimadda ugu weyn waa on page SEO. On page SEO oo post saa u qor lahayd, post SEO friendly ah ayaan xoog saari doonaa insha Allah.